waxaa sharaf weyn noo maanta in ay noo yimaadaan wafdi aada u ballaaran oo ka socda golayaasha sharci dejinta ee dowladda federaalka soomaaliyeed, guddoomiyaha golaha shacabka ahna kusimaha madaxweynaha maxamed sheekh cusmaan jawaari, guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi, guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare abshir bukhaari oo taqaanaan raggii media waxaan malaynayaa saaxiib gaar idin leeyahay, iyo xubno kale oo ka tirsan labada gole ayaa noo yimid. sharaf weyn bay noo tahay in ay beritana ka qayb galaan furitaanka kalfadhiga soddonaad afartanaad golaha wakiilada ee Puntland. waa markii u horreysay runtii ay dhacdo noocaanihi ay ku yimaadaan Puntland ka qayb galaan furitaanka golaha, waxayna taasi ka tarjumaysaa horumarinta federalismka Soomaaliya ay qaadatay, in baarlamaanada dalku ay yeeshaan xiriir gaara, inay isu soo booqdaan, inay isu yimaadaan, inay wada shaqeeyaan, ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo samaynta shuruucda dalka, ay wax iskaga og yihiin, wax la wada leeyahay oo Soomaali ka wada dhexeeya oo cidna aysan cid ku eedayn, inay noqoto ayaan rabnaa oo la wada shaqeeyo, wada shaqeyn dhowna ay yeeshaan si ay u yaraato xasaradu, si ay yani u wanaagsanaato dowladnimada iyo wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. muhiimaddu intaa weeye. waxaan leenahay kusoo dhawaada dalkiinii, meel kale midnaa tegina Soomaaliya meel kamid aho aada idin kaga jecelyahay ayaa timaadeen. kusoo dhawaada Garowe iyo Puntland oo nabada, arka dalka, dadkiina la kulma insha allah, dadka aada wakiilada u ahaydeen weeye, aada runtii aad ka shaqeynayseen dhanahooda iyo wanaagooda iyo horumarkooda aad marwalba ku hawlanaydeen weeye. marka guddoomiyayaal soo dhawaada, sharaf bay noo tahay inaan Puntland ku soo dhaweyno. dhanka kale waxaan rabnaa inaan halkaan anigoo ku hadlaya magaca madasha dowlad goboleedyada, in aan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed ayaa noo soo diray casuumad 18 bisha inaanu isugu nimaadno xamar. marka odayaashu iga codsadeen anoo magacooda ku hadlaya inaan sheego inaan aqbalay casuumadaas kana qayb galayno shirka isaga ah. intaasna inaan sheego ayaan rabaa. soo dhawaada, aad baan ugu faraxsannahay imaatinkiina. insha allah waxaan rajeynayaa inay noqoto bilow wanaagsan. sidoo kale dowlad goboleedyada kale waa tegi doontaan bay ila tahay insha allah, waan ka qayb geli doontaan. isku xil wanaagsan iyo Soomaalnimo wanaagsan iyo iftiin wanaagsan baa muuqda. soo dhawow guddoomiyaha. wafdiga aqalka sare iyo guud ahaan xubnaha aqalka sare aan aada iyo aada uga mahad celinaya soo dhaweynta qiimaha gaarka leh ee dowlad goboleedka Puntland noo fidisay iyo shicibkeeda. aada iyo aad ayaan uga mahad celinayaa oo aan u soo dhaweynayaa oo aan raalli mudan. intaa waxaa ii dheer inaan idhaahdo aqalkani dowlad goboleedyada toos uga mas-uuliya. imaanshaha iyagu inkastuu soo daahay oo hadda markii ugu horreysa ay tahay, waa arrin aan ku soconno oo ay lagama maarmaan tahay inaynu xiriir gaara yeelanno oo aynu iska warqabno oo xiriirkeenna uu noqdo sidii dalkeenna midnimadiisa, wadajirkiisa iyo horumarkiisa ay meelmarin u samayn lahaayeen. intaa haddaan idhaahdo kolley hadalku inoo dambayn doonaa oo waynu wada hadli doonaa, laakiin waxaan idiin sheegayaa magaalada anigu hadda intaa soo socday waan fiirinayay 83 ayaan Garowe halka habeenimo hotel baan ka waayay. waxay ahayd wax yar. waxa ii raacay 2006 oo markii aan imid aan yaabay, laakiin waxaan idiin sheegayaa bridge aan filayo inaanu hadda soo marnay wax ka cirifeeyey waagaa ma jirin. hadda magaaladan oo aada u ballaaran ayaan soo maray. aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa dadweynaha Puntland ee dadaalkaa badan sameeyey ee magaaladaas
وسيدتني يصدحني هاي الضابية لبدي يكون يلحدين هاي مقالة آدو في عن لكن هدا صدح أفرج بارنتي سدان ركي قول إن شاء الله تلكين نوردن ساسين قوة دينا لكن هالشيء عن عدسانية هالكشيء عن عدسانية ومدنما الصومالية مدنما الصومالية يعني عدسانية ودلكينا برواقضة إنه قومده خيرات كيسة سان ولا صبع إنا إنه مدونه ونبت مخنا هذه أدباد محسنتين أنت سوكسوكم بسم الله الرحمن الرحيم عدكي waxaan ku biirinayaa gudoomiyaha Soomaaliya oo celiyay dawladda Puntland iyo dhammaan shacbiga ku nool deegaanada Puntland sida wanaagsan oo qiimaha iyo qadarintii gacaltooyada ku saabsaneed oo noo soo dhaweeyay aad iyo aad baan ugu farxay waa nidaamka noocan oo kale oo la soo dhaweeyay qalbi furnaantaasi waxa igu dambeysay 80aadkii 70aadkii marka aad iyo aad baa ugu mahadsantiin waxaan qirayaa in Puntland ay gaartay horumar bisayl iyo wada shaqayn fiican iyo horumar ay ka shaqaynayaan badana madaxweyne aad iyo aad baa ugu mahadsantahay sida waxaad noogu orbisay iyo sida waxaad noo soo dhaweyseen waxaan filayaa in socodkayaga maanta ma noqonayo kii ugu horeeyay ayaamahan saanta waa idinku badan doontaa noo adkaysta marka insha Allah waa inoo berito haddii aan yidhaahdo waxaa kaloo aad ugu faraxsanahay magaalada markaan soo degay Puntland deegaanada shacbiga ku nool waxaan arkaa inay qodob fiican oo dastuurka ku jira ay hirgeliyeen oo afka maay iyo maxaa tiri laga hadlay waa dastuurka fuliseen taa waa ku mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantiin beritiin oo ahaanaysaa